السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaad saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee ku xiran janaalka Walaalaha Family. waa mar kale iyo muuqaal cusub oo idin kaga diyaarinay musalsalka Walaalaha xalqadiisa 66 dhacdooyinka ugu muhiimsan. سوي أغنى هذا تضاد كده بيوح فيديو ما نسوقلين حاجة على أي إسكتير ودنك يوتيوب كي يصير وكل دعوة هذا كور عادي شجني دنك ATV مركز نوع ما يسن أوغراني نعوز كوس كي معلومات ذكر عن channel كم كسو قد بينو إن شاء الله جوز كوس كchannel هذا أنا كلا يكده ونسين دنك community كا أيام كوس شير جرين دونا مركز جوز كوس كي وحلا مدة حيسين يصير community كا كور هاي ساعات كده من دنك community كا أيام إن شاء الله ولينك يجيس بين كوسو قمن دونا عدد فيديو كان وقت حاضر كده ونسين إسلام مركز دنك communities كا تكوي ديد لينك كا حاجة ساعات كده بكوسو لابو إسلام مركز لينك كا هالكاسي كيسا goos-gooska sidaas ayaad ku daawanaysaa marka muuqaalkan waan ka xumahay faalado oo dhameystiran idin lama wadaagayo sababtoo ah waxaan ugu talagalay in aan inta ugu muhiimkasaneed ama dhacdooyinka ugu muhiimsan xalqada lixaad aan kaga hadalno marka hadii aad ka heli weydin oo waxyaalo qaar aan sheegi weyno mar waliba yani wana la wadaagi kartiin fikirkiina oo waxaan isku daynaa in aan dabcan dib u soo laba faaleyno xalqadii oo dhameystiran faaladii oo dhameystiran aad heshiin waa tahay dhacdooyinka ugu muhiimsan xalqada 66 waxa kamida kala taga Aasiya iyo Duruuk tartanka Senguul iyo Goonuul iyo kuwa kale aad u badanba waa tahay bal dhacdo u horeysay aan soo qaadayno waxa kamida yarkii Sarbi ahaa kadib markii uu si lama filaana baashan wax lagu xaqo iskoobayaan aniga oo aqaanasan horeydii ku sheegayba uu ku kufay isla markaana kabadhadii meeshii ay ku soo dhaceen xoogaa dhaawacana uu soo gaaray waxa uu sheegtay in Umar dhibaatadan uu u geystay isla markaana Umar dhankaasi waxa loo qaadayaa saldhiga balse ugu dambeyntii Ahmed Yilmaz ayaa ogaanaya oo wiilkiisa u sheegay inuusan Umar wax dhibaato u geysan kadib markii Ahmed Yilmaz dalbaday in kaamirooyinka qolka ku xiraa iyo kaamirooyinka wax walba duubay in loo soo gudbiyo Ahmed Yilmaz eego Sarbi wuxuu isdhaay kaamada hadii eego meesha ku ceeboobiya hadda runta iska sheeg isla markaana aabahay runta u sheegay Ahmed Yilmazna dacwada Umar la dacweynayay ayuu dib ula laabanaya isla markaana Umar ay ku dhahayaa dacwada waan la laabtay waxaan oo arkaa arin si qaldan u dhacay mana doonaa mar dambe inay istagaashiin wiilkayga aniga ka cishanaya balse Umar ayaa ku dhahay qalad hore u dhacay ma aha wiilkaaga ee sameeyay aniga wax dhibaato uma geysan aniga xadkayga waan ku ekaanaya adiga wiilkaaga xadkiisa bal wakaas ku ekaado aniga wax dhibaato uma geysan Ahmed Yilmazna runtu waa wuxuu ogaaday wiilkiisa in uu qaldan yahay oo Sarbi qaldan yahay sidaas ayana ku dhamaatay dacwadii Umar la dacweynayay dhanka Sarbi Umar arinkooda ama dhacdada ugu muhiimsan xalqada halkaas ay ku joogsato mar dambe faraha maysan isla soo galin dhacdo kale oo muhiim ah ayaa jirto xalqada ku jirto macallimad ayaa soo galaysa isla markaana macallimadaasi waxay dhahaysaa waxa jira yani scholarship hadii aad rabtiin oo yani fursad ah oo dhanka wadanka Talyaaniga ama Italy ayaa jirta oo school walba ama college walba hal qof ee laga dooranaya marka yani fikirkiina ay la wadaagaysiin isla markaana qoraal aad u qurux badan iyo yani waxa aad rabtid ayaad la wadaagaysiin warqad ku soo qoraysiin isla markaana macallimiinta ayaad ma aragtay u soo dhiibaysiin ama anaga aynu soo dhiibaysiin oo macallimiintiina anaguna isla markaa ayaga ayaan u direynaa hal qof ay iskuulkiiba ka dooranayaan marka haday idin doortaan hal qof oo idin kamida waa nasiibkiina arinkaasi runtii Aasiya ayaa aad u xiiseynaysa waxayna go'aansanaysaa in ay qorto oo hadallo qurux badan qorto sidoo kale baahideeda ay u sheegto si fursad ahaan loogu diro dalka Talyaaniga waxbarasho free ah oo halkaasi u tagto Aasiya ayaa jeclaanaysa sidoo kale ay bikayaduna jeclaanaysa badi dadku iska wada jeclaadeen xitaa beerka fikirkiisa ayuu dhiibsaday balse dadka ka soo reteystay arinkaasi aan rabin waxa kamid ahaa Afra iyo Duruuk iyo Umar iyo dadkaasi ayaasan arinkaasi ka helin oo marnaba faraha aan la galin arinkaasi waa tahay wuxuu waqtigu socdaba gabadhii Aasiya ahayd way qoraysaa hadallo aad u qurux badan iyo hordhac yar aad u qurux badan ay qoraysaa isla markaana Afra ay akhrinaysaa waxay dhahaysaa wala dhac runtii hordhac aad u qurux badan aad ku qortay waxayna la tahay inaad ku guuleysanaysid balse Aasiya halkaasi waxay ku cadeysay in aysan badoonayn in ay ka qayb gasho ama fursadan ay yani ka faa'iideysato ma rabtaba kadibna Afra ayaa tiri mar hadii aad rabin bal ka hor hadeen aniga aan qoro oo aniga aan ka faa'iideysto hordhacaaga aan qaato iyo qoraalkaaga Aasiyan waxa dhahaysaa wax dhibaato uma arkiya qaado isla markaana intay qoftii Afra ahayd warqadii Aasiya qaadato oo wax walba ka eegato warqadii inta isku jibisay meel ku tuuraysa ma shay karinay Afra ku tuurtay meel Aasiya ku tuurtay kadib adu xalqada waqti hore ayaan daawaday marka warqadii inta saa loo jacbadiyay meel lagu tuurayaa ugu dambeyntii waxaana la tusayaa gabadhii ay bikaahayd oo meel iska fadhiday isla markaana ayadoo leh
runtii iyadoo aad u murugaysan ugu horeyntii iyada keligeed ma hadlayso balse ninkii beerka ayaa u imanaya wuxuu ku dhahayaa ma beerka ayaa sidan toolga ayaa u imanaya toolga markuu u imaado kadib toolga wuxuu ku dhahayaa ma beerkii ayaa sidan kaaga murugsiiyey ama qofka inaad murugood sabab u noqday ma beerkiiba kadib ayadana waxay dhahaysaa maya beerkii maaha haddaba toolga wuxuu ku waaninayaa IBK inay beerku isku soo laabtaan IBK waxay ku dhahaysaa aniga ma doonayo doqonkaas inaan mar dambe ku laabto sidoo kale kama helin waxyaalo oo waqti xaadirkan samaynayo toolga marka naga daa ninkaas wixiisa kadibna wuxuu dhahayaa toolga marba haddii aad beerka koolwelin waxa kale koolwelaysa muxuu yahay isla markaa ayaduna waxay dhahaysaa waxaan rabay fursadan waxbarashada firiga talyaaniga inaan ka qayb galo balse waxaan qoro oo yacni ma sheegi kari iskumana kalsooni haddaba toolga ayaa waqti xaadirkaasi aad iyo aad u dhiirigelinaya isla markaana IBK ayadoo iska socota ayaa waxay soo galaysaa xafiiska wax lagu akhristo office-ka markay soo gashay kadib qolkaas waxay arkaysaa warqadii aadka jacbad ku ahayd hordhaca aadka u quruxda badan uu ku qoraa isla markaana warqadaasi aad ula dhacaysaa waxayna dabcaysaa inay fikirkaasi qaadato marka toolga ayaa u imanayo wuxuu ku dhahayaa maxaa halkan ka qabanaysaa maxaadse akhrinaysaa IBK waxay dhahaysaa runtii qoraalka halkan ku qoran ayaan aad iyo aad uga helay balse qof qoray ma sheegi kari qofkan way iska cadahay inuu iska daayo sidoo kale qofka qoray wuxuu noqon karaa beerka ayuu noqon karaa walaalkii ultaan ayuu noqon karaa sidoo kale aasiya ayay noqon kartaa marka qoraalkaani ma sheegi kari runtii qof qoray kadibna ninka toolga ayaa aad iyo aad ugu dhiirgelinaya wuxuu ku dhahayaa bal ka waran haddii aad qoraalkaba intaad qaadatid si xadnimo camal waayo ama tuugnimo waayo dee yacni fikradeeda ma aha aad yacni qoraalka aad fartaada ku qortid oo warqad khaas aad ku qortid halkan aad ka eegtid IBK uu ku raacaysaa iyadoo aad ugu faraxsan qoraalka aad ku quruxda badan ee aragtay iyo baahidaasi iska quruxda badnayd iyo hordhaca aadkaas u quruxda badan kadib wixii intaa ka dambeeyay Afra ayaa loo xil saarayaa in ay warqadaha dhammaanba ardayda ka soo diyaariso inta rabta inay fursadaasi ka faa'iideystaan Afra markii ay qaado warqada IBK waxay arkaysaa warqadeedii warqada IBK inay isku qoraal yihiin kadibna waxay dhahaysaa IBK maxaa ka qaldan aniga idin ka soo xaday qoraalkan sidoo kale qoraalkan asal ahaan Aasiya ayaa iska lahayde maxaa qaldan Aasiya waxay dhahaysaa qoraalkii aan ka laabtay maxaa jira kadibna IBK waxay dhahaysaa aniga ayaa qoray aniga iska fikradan qof kale male fikradan aniga iska soo istaagaysaa ugu dambeyntii Aasiya ay u soo jeesanaysaa waxay ku dhahaysaa Aasiya wax walba wanaag ma adiga iska leh warqadan hadda ma waxaad leedahay anaa qoray ma waxaad hadda leedahay yacni wadiga koobiyay hadda ma waxaad leedahay fikirkayga xaday calaa ay gabadha IBK ahayd halkaasi la fadhiisanaysaa aniga xitaa waan fahmi waxa calaalka ka keenaya in ay xaday waaban u jeednaa nafteedu inuu og tahay gabadha Aasiya maxay saasoo dhan ugu gugubanaysaa haddaba Aasiya iyo IBK halkaas ayaguna xoogaa isku dagaali doonaan waa tahay inta haddii aan kaga gudubno dhacdada labaad u muhiimkasan bal han u gudubna labada dhacdo ee muuqaalkan idin kula wadaagno iyaguna muhiim aad saas oo la haddaba dhacdada saddexaad aan idin la wadaagaynay xalqada u dambeysay yacni u xiisaha badnayd waxaa ka mid ahaa kala tagii Aasiya Dooruk maxaa sababay waa tahay Dooruk waxa uu ka qayb galayay basketball ayaa loo yaqaanaa afiliya ama kubadda gacanta ayaan filayaa sax basketball marka ina basketball tahayna ma sheegi kari oo yacni 4 kubadood ayuu sheegay oo uu jecel yahay balse mid kamid ayuu ka qayb galay oo basketballkan tan gacanta u maleynayo inuu ciyaarayo waa tahay markuu u sheegay kadib inuu basketballkaasi ka qayb galayo wuxuu u raacin rabay wax kale kadib wuxuu diiday inuu u sheego xogaadna waxa weeye ceeb dhankiisa oo yacni yaraantiisa wuxuu sameeyay weeye iyo ceeb dhankiisa ka socotay inuu xogaa yara doqon yahay oo yacni waxyaalo umaleeyay inuu dhageysto weeye haddaba sirtaasi ayuu u sheegayaa yacni muuqaalku nooma saamaxayo sirta haddii aan dhahno muuqaalkan ayaan ku sharaxaynaa runtii aad ayuu u dheereed markuu uga sheekeynayay sidoo kale si weyn ayuu u fahansiinayay markaas sidaa iyo si ka daran inaad idiin fahansiinaya loo baahan yahay balse على كل حال وواح قفل بو يرانتي يعني عيالنimo ciliga kormaad maqashay oo saas oo kale aan ka socono markuu u sheego Aasiya sirtaasi Aasiya kuma qoslayso waxa dhahaysaa yani ciyaalnimada qofal buu soo maray maxaad ugu malaysaa wax doqonnimo nasiib daro waqtigaasi beerka ayaa kor ka dhageysanaya oo Dooruk u sheegay in waxa uu beerka dareemo uu Doorukna dareemi doono beerka ayaa Dooruk hadda korsa u sheegay marka beerka labadooda wada sheekaysigooda uu maqlayaa waqtigu wuxuu socdaba beerku wuxuu arkayaa maalin yani iyagoo klaaska ku jira in Umar iyo Aasiya warqad isku qorqorayeen warqadaasina ay Umar kursigiisa dul taalo balse warqada Aasiya ayaa Umar u qortay yani qof hadal caadi Umar yani su'aal caadi iska weydiinaysa maadaama meesha macallin joogo yani intay hadasho ma dhigi karto Umar wax ma ku weydiiyaa su'aal caadi iska weydiinaysay
marka warqadii dhankeeda dambe ayuu ku qorayaa yani cumar oo bala socotaa in aan leeyahay jacayl yani aad u xun jacayl doqon oo yani wax walba aan waxba kala garanayno yaraantiisa xitaa waxa sameyn jiro wax walba ila wadaagaya oo carina inaan saaxiibana la socotaa ayuu ku qorayaa isla markaana warqadii wuxuu hoos gelinayaa buugga Dooruuk ardadii marka cashiraantood dhameystaan fasalka waxa dhacaysa in dabcan buugii markuu Dooruuk qaadays dhao in uu arko qoraalkii kadibna uu labada dhinac ka akhriyo uu aad u xanaaqaday in Dooruuk Cumar lagu hor ceebeeyo kadibna Aasiya ayuu ku dhahayaa Aasiya warqadan madiga ayaa qoray kadibna Aasiya intee qaado nasiib wanaag Dooruukna uu u rogayaa dhankii wanaagu u rogayaa kadibna Aasiya waxa arkaysaa inta yareeda caadiga ahayd u qorto Cumar ee ahaade Cumar oo yani waxaan ku sheegayaa iyo wax la mid ah ay akhrisay kadibna waxa tiribaa dhankii kale eegnaha aniga ayaa qoray kadib wuxuu ku dhahay waxaan ku leekaado qof doqona tada kale waanay ku dhahay arrinkan wadana kaliya nagu ekaado ala iyo sagina halka la fadhiisanaya ayuu waxa dhahaysaa maxaa qaldan yani kuma fahmin maxaa saasan ugu soo fiirinaysaa asaguna wuxuu ku dhahay warqada balrog warqada markay rogtay akhriso waxay dhahaysaa Dooruuk waan ku bariyay aamin aniga ma qorin tada kale seedu aamintina waxaan oo kale aan qoray asaguna wuxuu dhahayaa waan aaminay yani adiga kaliya aan ku sheegay qof kale uma sheegay yaa kale qori kara wuu iska dhaqaaqaya labadooduna halkaas ayay isku dhaceen oo yani halkaas ay ku kala xanaaqeen Aasiya Dooruuk runtii muddo badan maysan isku dhicin ayay ahayd waa dhacdada labaad waa dhacdada saddexaad baan ka wadaa in idin la wadaagayo dhacdada u dambaysa runtii muuqaalku waa nagu soo dheeraaday balse 100% waxaan hubaa san muuqaal wax laag inaan idin ka soo laba samayn doono oo mid walba idin fahansiin doono goosgooskan waxa kala socon doontiin channel-adana kale hadaba dhacdada kale u dambaysa waxay tahay Soonguuriga Goonul way tartamayaan waxayna ku tartamayaan ganacsadaha xaafadda ama yani labadooda xaafadda midunba u joogay labadooda oo aad u ganacsanaya isla markaana waxyaalo badan ay sameeyaan si loo doorto balse ugu dambeyntii labadoodu way kala guulaysan waayeen doorashadu wali maysan dhicin shacabka ayay yani waxyaalo badan siinayaan si ay labadooda u kala doortaan oo shacabka ay waxyaalo badan siinayaan ugu dambeyntii caawiye caakif wuxuu caawiyo noqon doonaa islaantii Soonguul ahayd kadib كلابكي dabcan kalaabkii ay Axmed Yilmaazi iyo Nabhad isla lahaayeen ay waxa dhacaysa caakif inuu dhaho maanta waa maalin caafimaado yani xogaa dhig aruurisiyo yani daawooyin waxaan ku iibinaa inuu dhaho kalaabkii maanta ma jiro kalaabka qofna iman inuu Axmed Yilmaazi ku dhahayaa dhacaysa balse runta waxay tahay inuu xaflad Soonguul ugu dhigayay oo dhamaan ay ku wada farxayeen waqtigaasi oo ay baashaal iyo wax walba ku qaadanayeen qof walba uu ka soo qayb galay Soonguul asxaabteedii dadkii u codeeyay 60 ilaa 70 dhan say ayaduba sheegtay ugu dambeyntii xafladdu si macaan socoto xitaa Dooruuk loo yeeray si uu meesha uga heeso ayaa waxa dhacaysa gabadhii Yaasmiin hayd in la hadasho Cafra ay ku tiraado waxaan rabay in aan su'aal ku weydiiyo Uljaan igama qabanayo maxaa qaldan Uljaan sal ku tagay Cafraan waxa dhacaysa Uljaan wuxuu tagay clubkiina oo aabaha leeyahay ay maanta xaflad ku dhiganayaan oo xaflad oo dhankan xaafadaha xaafadeed ay ku dhiganayaan ay Yaasmiin ku dhahaysa Cafra Yaasmiina waxa dhaysa ma clubka aniga xaflad xaafadeed lagu dhiganaya kadibna Axmed Yilmaazi hooyada su'aal ay maqlaya say u ordeen waxa aadeen xafladii wayna qasayaan caakifana lagu dhahayaa maxaa saan oo dhan igu khiyaantay Axmed Yilmaazi ana ku dhahay wariya ma gadaasha ayaad hawlaan ogeyn ka wada waxaan qiyaana maxay tahay sayda kale ma clubkayga waxa ku sameynaysaa maxay tahay waxaan ay ku dhahaya kadibna caakif wuxuu ku hadla garala Nabhad ayaaba suuxaysa aniga waan idin sheegaya waxaan maleynayaa qosaas inay jilayso kaaba daran waxa ka daba suuxi doonta Soonguul waxa ka sii daba suuxi doona tolga kulli waxa raba inay caakif badbaadiyaan waa tahay muuqaalkan intaan uu ka yahay la soco muuqaalada xig muuqaalka like saar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala barakaatuh